qaladkaasaa dhacay qaladkana muhiimad mas'uuliyadiisa ugu weyn waxaa qaadanaya hoggaanka waxbarashada ee gobolka Mudug ardada waalidiinta dhammaan dadka oo sectors kala duwan liibaan waa mahadsan tahay dhammaan dadka Soomaaliyeedna waa salaama dhalinyaradii barnaamijkii imtixaanka xalay sida akademiga ah uga falceliyana ayaguna way mahadsan yihiin warbaahinta oo sidoo kale arintaas dareenka dadka dhalinyarada baahiyay oo meel dheer geeyeen sidoo kale ayaguna way mahadsan yihiin qaladaadka meeshan ka dhacay wuxuu ahaa horta si guud hanaanka waxbarashada ee gobolka qaldan sababtoo ah 8 xarumood oo galmudug lagu galay imtixaanka 9 xarumood oo galmudug imtixaanka lagu galay 8 kamid ah waxay ahayd galgudud halka hal ka xarun oo kale oo sagaalaadna ay gaalkacyo ahayd oo dhammaan dadkii gobolka mudug imtixaanka ardada dugsiga sare ku galay oo dhan gaalkacyo iimaanayeen arday qiyaastii 1250 arday ku galay galgudud waxay dheereed ardadaas 711 arday ayay dheereed wadarta guud ee ardada marka qaladaadkaas horta meesha ka dhacay wuxuu u dhacay matalaad xumo dadkan gobolka mudug haysta iyo dayac dadkii meesha ku matalaya ee dayaceen hoobiyo oo 270 kilomitir u jirta magaalada Gaalkacyo ardada imtixaanka ku galaysa waxay yimaadeen Gaalkacyo therefore alguula usil dibir galansoor bandiiridle ayaguna Gaalkacyo ku galeen halka 18 caruur ardaya ay ku gashay xiraale marka waxay ahaayeen qaladaad guud oo dhacay ahaayeen marka taas laga soo tago waxa kale oo xiisada dhaliyay waxay ahayd kormeerka imtixaanka dawladda federaalka waday waxay lahaayeen instructions ay lahaayeen kormeerku instruction kaas oo ay kamid ahayd horta kormeer marka halka intuu yimaado ayadoo uusan hogaankii waxbarashada gobolka mudug uusan u imaan oo meesha ay degi lahaayeen siteski imtixaanka lagu gali lahaa transportationkii amnigooda waxaas dhan ayagoo aan la qabanin horta imtixaan iska geli karaan qolo walba waxay leedahay door ay leedahay jaynkaas in lagu wada jiraa la rabaa dadka marka gobolka waxa u qaabilsana technical error ka dhacay ayaga waxaas ku dhasheen ardada waxa laga rabaa inay awaamirta instructionka imtixaanka qaataan qoladan federaalka waxay leeyihiin instructions ay fiirsanayaan in marka hal saac ka hor ardada la soo xareeyo in ardada la baaro in ardada xaroodaan in markaas imtixaanka loo qaybiyo in Soomaaliya oo dhan atwanis oo imtixaanka wada bilaabo instructionkaas ay ardadu ay ka biyadiinayeen oo waxay rabeen intay soo daahaan inay imtixaanka si dhaqso oo crash ayagoo miinaysan inay galaan therefore taasna waxay keentay in isku dhac u yimaado ilaahay fadligiisa wafdi oo wasaaradda waxbarashada galmudug ka socday oo agaasimuhu uu ku jira ka yimid Dhuusamareeb isaaf garwaagii wixii xalaa loo fadhiistay xildhibaan Caloolgeel iyo maayarka iyo laamaha amniga oo shalay ku jirana door fiican ay qaateen waa isku soo dhawaaday wixii waa la xaliyay saaka si ismuus oo nabadaha loo galay qaladkaasaa dhacay qaladkana muhiimad mas'uuliyadiisa ugu weyn waxaa qaadanaya hoggaanka waxbarashada ee gobolka mudug ardada waalidiinta dhammaan dadka oo sectors kala duwan ardaygu 12 sano oo waqti soo gelinay wuxuu soo baranay waxa la rabaa wixii uu soo baranay inuu meesha keeno sidoo kale goobaha imtixaanaadka ama goobaha waxbarashada maaha meel ciqaabeed waa meel waxbarasho taalo waa meel la rabo ardayga inuu relief ku dareemo marka ayagana ardadana waxa la rabaa inay waajibaadkii ardaynimo ee lagu lahaa inay gutaan sidoo kale aqoonta waxa la rabaa iyo way wada socdaan iyo akhlaaqda cilmi aan akhlaaq lahayn waa geed aan miro lahayn oo kale cilmiga iyo akhlaaqda way wada socdaan akhlaaqda waxa la rabaa marka ardada in laga soo dhiso conductiga marks lagu bixiyo iskuulada marka si ardada la soo dhisay ay deegaanka ayaguna u galiyaan wixii la soo dhisay bulsho horumartay hada aragtaan waxa tiri aqoonta waxa tiri hoggaanka waxbarashada ayaa aad u liita arintaas maxaa kala jeedaa waxaan kala jeedaa liibaan waa maasantahay hoggaanka waxbarashada waxay ahayd marka hore in waxyaabo kasta ee tabasho keeni kara waxyaabo kasta ee musuq sahli kara waxaas oo dhan waxa la rabaa inay marka hore aan lagu leesku qabsanba
oo qolo walba shaqadeeda qabsato maamulayaashu waxa la sheegay inay WhatsApp groups ay sameeyaan ardada si wax loogu soo diro at least si guud marka systemka Soomaaliya oo imtixaanaadka u qaldanaamo dhuusamareeb I think andahe cabud waxaan daawanaynaa arday inta imtixaanka ka shaqeeyay TikTok iska soo duubay oo dhahay maanta businesska waa ku raaxaysta marka midka gaalka ay joogo hadduu kaas arko wuxuu leeyahay hebel bal lama wardiin adna waa inaan wax helaa ardayga marka waxay ku encourage gareynay inuu raadiyo qash marka hanaanka wax barashada qaldan marka aan leeyahay not only inuu ka qaldan yahay gobolka mudug wuxuu ka qaldan yahay Soomaaliya oo dhan wuxuu ka qaldan yahay galguud wuxuu ka qaldan yahay all sectors imtixaanka loo galay marka taas waxay rabtaa in la saxo